warar soo ifbaxaya ayaa sheegaya in khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabelle. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii xildhibaano ku shiray shalay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ay sheegeen in gudoomiye cusub oo hogaamiyo baarlamaanka Hirshabelle ay dooran doonaan dhawaan. xildhibaanada ayaa gudoomiyaha wakiilada maamulka Hirshabelle Cusmaan Barre waxay ku eedeeyeen inaysan ka goonayn inuu hogaamiyo xildhibaanada Hirshabelle, waxayna tilmaameen in gudoomiye Cusmaan uu ku sugan yahay Muqdisho kulankii golahan uu ku fasaxay fariimo u diray xildhibaanada. sidoo kale xildhibaanada sheegeen in dooran doonaan gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabelle kulanka yeeshanaya waxa shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada xildhibaan Canab. xildhibaan Mukhtaar Tuure oo kamid ah xildhibaanadii maamulka Hirshabelle kana mid ahaa xildhibaanadii sheegay in dooran doonaan gudoomiye cusub ee hogaamiye baarlamaanka Hirshabelle oo la hadlay KNN ayaa waxa uu sheegay sidan: waa shaqaynayna gudoon ayaana dooran doonaa insha Allah taala ku meel gaar ah deemayno hadda gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa jooga tiifoodana xanuun ayuu ku maqan yahay Turkiga ayaan ku ogaan laakiin hadda uu maanta la igu dhahay waxa waay caawa waxaan rabaa marka inaan idin la wadaago بعض صحافة oo raadiyo kulmiya iyo shacabkana dhegeysanayaba in anagu shaqadayna aan qabanayno waqtiga anaga aan marayna 3 sano ay nooga dhiman tahay 4 sanaba hal sano ay nooga harsan tahay hal sano kadibna hadii inta hadda 3 bilood nooga dhiman sanadka cusub waxba aan la qabanin sanadka dambe anagu waxba aan qaban karno doorashada la gala marka waxaan rabaa inaan idin sheego hadii 3 bilood oo gudoonku hadda 2 bilood isha sagaalad ka soo baarlamaanka lagu adeeco loo taageeriyo wax dambe oo qaba karna inay ka jireen marka xildhibaanada sharaf badan waxaan ugu baaqas degdeg inay ku soo galaan caasimada Hirshabelle. baarlamaanka Hirshabelle oo aan shirin muddooyinkii u dambeeyay ayaa hadda waxaa muuqata in khilaaf xoogan uu ka soo ifbaxayo iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in xildhibaanada Hirshabelle kalbar ay yihiin wasiirro ka tirsan xukuumadda madaxweyne Waare.